intiina isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga waxaa 24 saac ay ugu dambeeyay haystay sawiraanta idiin muuqda oo ah 8 jiro loo dhigay xaflad aroos oo qiimaheedu aad u sareeyo marka la eego habmaamuuskii borotokoolka xafladaasi lagu qaban qaabiyay. haddaba daawada caruurtan yaryar ayaa waxaa loo dhigay xaflad aroos oo qiimaheedu aad u sareeyo isla markaasna ka soo qaybgalayaasha iyo dadka kale ee baraha bulshada ka arki kara loogu sheegay inay yihiin lamaanaha ugu daadeergayga Soomaalida taasoo la yaab ku noqotay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed maadaama ay caruurtan aad u daayar yihiin daadoodana lagu qiyaasay ilaa 8 jiro ama 7 jiro. waraan waxa uu arki jirtay dad qaangaar ah oo qiyaastii jiray 15 jiro oo iskuursaday isla markaasna loogu magac daray inay yihiin lamaanaha ugu daadeer Soomaaliya balse warkaasi war baa ka dambeeyay oo waxa soo baxay 8 jiro xaflada aroos oo kumanaan kun oo dollar ku baxday xafladooda loo dhigo isla markaana bulshada Soomaaliyeed loogu sheegay inay yihiin lamaane waqtiga ay sugayaan markay qaangaaraan waa sida loo dhigay hadalka iyo ujeedka xafladaasi loo soo maamusay. balse daawada waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa marka koowaad inaad muuqaalkan like garayso like taagtaada bilaash ay ka tahay anigana wax weyn ayay inoo tahay. marar badan oo daawatid muuqaalada YouTube-ka la soo geliyo waxaad mar walba dhagtaada ku soo dhacda like noo saar balse ujeed ayaa ka dambaysa oo ah in qofka haddii muuqaalkaas loo like garay uu noqon karo muuqaal ku baaha baraha bulshada isla markaasna muuqaalada ay isku leegtihiin la soo hoos dhigay mar walbaba. haddaba daawada walaal waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like garayso sababtoo ah bilaash ayuu agtaada ka yahay anigana wax weyn bay ii tahay. iska like garay muuqaalkan oo walaalka ayaa ku faa'iideeyay kuna soo dhawaada mowduucan kaga hadlayna maanta lamaanaha ugu daadeergayga Soomaalida. haddaba daawadayaal intiina isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga 24 saac ay ugu dambeeyay waxay haystay isla markaasna arki kartaan lamaanaha aad u daayar oo baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga sawiradooda la wareejinayo. lamaanahan ayaa waxaa la sheegay inay yihiin 8 jiro isla markaasna loo dhigay xaflad aroos oo qiimaheedu aad u sareeyo run ahaantii marka la eego habmaamuuska xafladaasi qaabka loo nashqadeeyay hoolka kareynta hoolka waxyaabaha xafladaasi laga cunay ee ku baxay ka soo qaybgalayaasha iyo sidoo kale qarashka lagu bixiyay kaameramanada duubo muuqaalada high quality ah ee aroosyada laga duubo. haddaba daawada su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah dad waaweyn oo qaangaar ah oo xaflad aroos qiimo sare lagu maamuuso wala gardujiidka laga leeyahay oo dad laga sugayo isla markaasna maalmaha soo socda ama isla habeenkii tagayba ama habeenka soo socda aqal gali kara isla markaasna laga sugayo in noqdo qoys dhisan oo awlaad dhali kara qaangaar ah oo rajo laga leeyahay. balse maxay tahay sababta 8 jiro xaflad aroos loogu dhigo isla markaasna qarash badan lagu bixiyo ayagoona qaangaar ahayn oo wax iska dheefayaan aysan jirin dareenkoodan uusan ahayn dareen qaangaarnimo ama qofku wax ku dareemi karo isla markaasna waa fahmi kartaa ujeedka ka hadlaya. markaan usoo laabto mawduuca maxay tahay ujeedka 8 jiro xaflad aroos aad u qurux badan inta loogu dhigo lagu maamuuso haddana la sheeg baraha bulshada sawiraantooda la soo geliyo oo la yiraahdo waa lamaanihii ugu daadeergayga Soomaalida hambal iyo soo dhaha taas ayaa waxay noqotay dad fara badan oo Soomaaliyeed mid ka yaabisay. haddaba ujeedka xafladan loo soo qaban qaabiyeen ehelada gabadha iyo wiilka ayaa waxay ahayd in ay Soomaalida u soo bandhigaan inay caruurtooda siiyeen isla markaasna isku faraxsan yihiin maadaama ay siiyeenna sidaas darteed ay xaflad ugu dhigaan si ay u muujiyaan dareenkooda ah in ay ku faraxsan yihiin in caruurtooda isku hibeeyaan ayagoo daayar isla markaana markii ay weynaadaan ay qaangaar noqdaan qiyaastii ay gaaraan 15 jiro 16 jiro wixii ka dambeeyana ay caadi isku guursadaan ay ujeedka reerkan yaryar ee hadda la dhisay waalidiintooda ay ka rabaan. haddaba daawada sida aragtaanba sawirada waxaa ka muuqdo habmaamuuska xafladaha aroosyada waaweyn lagu soo bandhigo iyo qaabka loo nashqadeeyo kaameramanka sawiraanta u qaado hoolka loo nashqadeeyo xaflada loo habeeyo inta waa la sameeyay. sidoo kale waxaa meesha la keenay hoolka keegi waxyaabihii kale macmacaanka ah nashqadii wixii dhanba waa la soo koobi garay oo meesha waxaa ka maqan dadkii waaweynaa ee qaangaarada ahaa
labaatan jirada ahaa ama dhowr iyo toban jirada ahaa ee waaweynaa xafladaha noocaas loo dhigi jiray waxaa bedelkooda jooga laakiin 8 jiro iyo 7 jiro. taas ayaa waxay la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed. waxay isdheheen 2022ka waxa soo baxay dad 8 jiro isku meherinayo xaflada dhiganayo. Soomaalidu way yaabtay gaar ahaan kuwa isticmaala Facebook oo intooda badan commentigooda marka akhrisid fajacaya maka ka muujinaya lamaanahan yaryar ee baraha bulshada soo galiyay isla markaasna lagu sheegay inay yihiin caruurta ugu daada yar, lamaanaha ugu daada yar, hab magacyada ugu quruxda badan loo bixin karay lagu dul qoray boostiyada la soo dhigay Facebook. marka xafladii markii la qaban qaabiyay ee la dhigay ee protocolka la diyaariyay waxa hawlka soo galay oo awal ka maqnaa oo nidaamka loo fariistay oo kaamilmaanada is diyaariyeen oo wix dhan la dhameystiray ayaa markii waxa ayrida ka soo galay caruusada 8 jir ah oo sas u laafiyoonayo gaardinaya hees yar oo muusig qawoon oo loogu tuuray. waxaa ka dhacday sacad baa lagu soo dhaweeyay kii qosli karo waa iska qoslay kii fuuri karo waa fuuray. waxa waaye habkii loo maamuusi jiray lamaano waaweyn oo da'weyn oo qaangaar ah ayaa si ka heersaraysa aan dhihi kara xataa ayaa loo maamuusay caruurtaasi. kadib waxaa dhacday ayagoo saas u xarwoonayaan ku dhahay wax dareen ah oo cabsi aysan ku jirin in adeeg caruurta ay ku daran xataa saas gacmaha isku haysto oo saas yaa u gaardinay ayaa hawlka soo galeen. sacab iyo moraal iyo qosol iyo farxad baa lagu soo dhaweeyay. waxay fariisteen kursigii taajka ah ee loogu talagalay inay fariistaan ay qasriga Soomaalidu u taqaano kursiga la fariisiyay. halkaas ay sawir laga qad qaaday microphone baa loo dhiibay waxay sheegay karaan bay sheegeen. kadib waxaa la guda galay in cake la siiyo caruurta yarteeda kale waa wala soo tababaray. waxa waaye habkii wax isku siinaya markay aragtid waabiski cake inta farkiitida la geliyo sas loo soo qaado wiilka afkasa u taagay kaas la waabina war ilaahay amarkiis badana. waxaan isla laba caruurta yararka ma tababar baa soo siiyo labada bilood camal ma inta meel la fariisiyo waxa la jirsana la rabaa sameeyo inta practical la soo siiyay ma hadda la keenay casharka inta la soo siiyay ma inta la keeno hadda practicalki ku soo bandhigayaan. warunaantu waxa la yaabaysan markay aragtid caruur intaas la eg haddana waxa sameynaya dareenkaasi soo bandhigayo inay is jecel yihiin inay isku faracsan yihiin oo wax kasta dareensan. hadduu hawlkan soo galay uu dareensan yahay in xaflad aroos ay jirto qasab uu og yahay in la isbacdhabayo markii la qalgalo oo wax jiraan intaas buu og yahay. hadda waxa kama qarsoono ujeedka inay intaas tahay uu dareensan yahay way dareensan yihiin labadooda. taada kale waxa ka sii daranba hab maamuuska xafladaas loo qaabeeyay. runaanti xaroosada xataa dadka lacagtada xataa qaaban loogu nashqadeen oo loo qurxin loo qufiyay marka la eego boorarka sidii la iskugu ekeysiyay daahiyada hawlka kuraasta dadka ka soo qayb galaya dharka loo soo galiyay protocolkooda. marka waxa soo eegtido dhan waxaas leedahay wal alla leeyahay kuwan dad rag baa dhalay oo qarash ku bixiyay oo waxa waaye ay ka go'oonta caruurtooda inay isbacdawaan laakiin waxa waaye ujeedka laga lahaa oo kaliya xafladaas loo soo qaban qaabiyay intaas oo qarash u soo baxday intaas oo juhdi dheeraad loo soo galiyay ayaa waxay ahayd kaliya in ay bulshada Soomaaliyeed inta taqaan ayaga ay u sheegaan isla markaasna xaflad qurux badan ay ugu sameeyaan in caruurtooda is siiyeen isla markaasna ay rabaan markii ay weynaadaan xataa in caruurtan sawraantan iyo waxaan la tuso oo la dhaho ay hebelow heblaayay adigu ku joogto ka fikir ayagoo yar dareen la geliyo iska warqabaan. ujeedkaas ayaa laga lahaa intuu wiilkan magaalada kale xabad iskuulka wareegaysanto intuu labada maalmood la sheekaystay kadib uu yiri hooy ana tan rabaa tan is jecelna qof kale mar intuu dhila gabadhan wiil meelaas ka soo socdo Soomaaliya wuxuu kiyaan la aqoonino waxa waaye isna is aqoon qortay soo qaban lahayd waxay ka taxadireen waalidiintaas waxay ka taxadireen arintaas waxay sameeyeen caruurtiin intay yiriin bal ku abuura mid kastaba inay meelaysan tahay oo juhdi lagu bixiyo oo qorsheeda nololeed dhan la diyaariyay meeshay degi lahayd meeshay ku guursan lahayd cidii ay guursan lahayd wax dhanba lagu sii abuuray oo lagu soo bandhigay. runaantii xafladan ilmaha yararka maskaxda caruurta waxa waaye runaantii waa mid aad wax u keedin badan oo xasuuso keedin karta. marka meel xaflad lagu maamusay hadda ka hor adoo wariirku qaniino maalin si xun ku cunay adoo yar
aba iska iloobayno ilaa hadda iska xasuustay la yaabay waxyaabo la mid ah ka waran hadii xafladda lagu dhigay qarash lagu bixiyay adoo yaro 8 jir ah qarash lagu bixiyay oo intaas la soo maamus oo sawiraan laga qaado oo xawaa markaa weynaatay ilaa 50 sano jir gaartay xataa mar walba qulubta kama baxayso marka daawadayaal asxaabay ujeedka xafladdaas laga lahaayay waxay kaliya inay dareenka waalidiintooda farxadeed maadaama carruurta isku hubiyeen inay soo bandhigaan muuqaalka intaas ku soo gabagabeynayna haddii nagu cusubta walaal subscribe saaro hadda xilligan soo gaartay sidoo kale muuqaalka inoo la garay waad ku maasantahay daawashada quruxda badan iyo sida mar walba aad noogu xirantihiin waad maasantihiin